بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قيارة الشرفتي قيمها إي قدرنت النجمودن إي الدنيا الدافية إذا نجد دعبنا يو كسور دوادا جدول كين عرورتا دريالك عرورتا نفقين تعرورتا إي جدول كأن سميني شرني دبات كي بمر إن شاء الله ما أنت حنقصو قادنا إن شاء الله فيش صب إن شاء الله fiishka oo sob laga sameynaayo macnaha hadaaf Soomaali ku sheegana kalluunka oo maraqa laga sameynaayo maraqa kalluunka insha Allah maraqa ama malaay maraq laga sameeyaayo soo dhawaad insha Allah halkan waxaan ku haystaa celery af Soomaali waxa lagu maqaan celeryga iyo waxaan ku haystaa hal xabo karoote hal xabo basasha cad waxaan ku haystaa broccoli-ga waxaan kaloo ku haystaa kabsar caleen tuun 3 mir iyo 4 xabo oo maaragtay kalluunka jirka insha Allah oo kalluunka gudiyo insha Allah baan halka ku haystaa waxaan kaloo ku haystaa insha Allah waa kaasa kalluunka saas buu maaragtay wax laf kuma jirto waa cad kaliix insha Allah kana waxa waay botaatiga oo la shiiday oo maaragtay oo lagu dhex kariyo caanaha waaye insha Allah waana niyadtu doonaa saan u sameynaayo kaasna waa aan ka horeyn igu sheeg kabsar caleen waaye kana waa 3 mir oo toon insha Allah biidnillah kariim maanta saasaan sameynaayo waxaan kala halka ku haystaa caano ku haystaa caanaha 3 oo faadkiisa 3 caruurta u sameyn rabo macnaheedu in xaal rabaa calooshooda maaragtay day u socoto oo maaragtay cunug uu kobco ma sha Allah ku soo baxo hada laazintid cunuga uu kobco insha Allah fitamiin waa laga helayaa insha Allah waxaan oo dhan fitamiin ku wala jirta insha Allah karaalaad wax yar shaqar yar hada maqshaan caruurta ay joogtaa maanta waa ahad waa kaasa la kala yaacaya insha Allah bidna karin wax yar kadibna waa isku soo noqonaynaa sida aan karini doonana waa arki doontaan insha Allah qadar yar daawasho isku soo noqon baa xiisa la asxaabteeda hadda waxaan sameynayaa karootada ayaan qolofta ka soo bixiyay alaabta dhawan soo dhaqay mindida ayaa waxaa maaragtay ii jarmi weysay soofaha ayaan marinaa insha Allah soofa la aqaan aniga kan afka lagu afeysto insha Allah geedka lagu afeysto aan marinaya kadibna soo say mindida maaragtay iyo kala jarjaraysaa qaab fiican bay ugu jaraysaa insha Allah oo wanaagsan saa alaabta dhan aan soo jarjaraya celeryga karootada basasha toonka waxa soo dhan waan soo jarjaraya iyo broccoli-ga waan soo jarjartay waan soo dhaqday waa kaas alaabta markaan u jarjaro insha Allah xagaas iyo waxaan aadaynaa digsiga kalluunkana waa jarjaraya asaga naftirkiis waan jaraya oo maaragtay qaab isla eego yaraan ka dhigaya macnaheedu caruurta ay ugu rafaadan u jijiidin yaan ka dhigaa insha Allah hatta caruurta kale ma cunaysa family-ga dhana cunaya wax maaragtay ma ahan oo waa wax healthy ama aha wax faad badan qabo waxaas maan insha Allah wax yar oo maaragtay badara halkaas ku shubtay saas markaan digsiga u marmariyay waxaan ku soo shubay alaabtii dhan waxa kama reebin qudaarta dhan waan ku soo riday kadibna waan gadgadinay waxoogaa xuruuf yar markay sameeyaan waxaan ku soo darsanay alqaad oo maraq digaag iyo wax yar oo maaragtay xawaaji dhudhub shiidan wax yar afar iyo suul intaas markaan isku soo rogo insha Allah xuruuf ay aad ay sameeyaan celeryga aad buu xuruuf badan yahay hatta basasha asaa ka xuruuf badan markay xuruuf isku soo sameeyaan oo arko karootada ayaa kareynay Soomaan wax yar oo biyo aan ku darsanaa insha Allah oo 2 koob dhan ayaan ku shubaa dabka ayaan saaraa la huurinaan ka wada macnaa haruubka ayaan u dheereynaa insha Allah ma daboolka u dheereynaa waxa uu karinaysaba kadib 3 minute markay saarnaato waan soo laabtay sidaa bay noqotay haddana waxaan sameynayaa bakeeri iyo bar caanaan ku daraaya insha Allah caanaha quraan li soo tusaayay bakeeri kalena iyo haafna waan reebanaa insha Allah oo waxaan ku sameeyni doonaa
bataatiga insha allah oo shiidan wax yar oo milixaan ku darsaday si dhadhan yar u yeelato intaa markay marayso sheekada waxaan kusoo daray kalluunkii aan soo jarjaray insha allah waan daboolayaa kadibna halkaas waxaan kusoo samaystay waxaan soo qoystay insha allah wax yar oo biyo ayaan kusoo qooyay barandhadii shiidneed sida cadhooti iiga burburaysanin insha allah marka caanaha ku kakarinayo kadib marka ii burburtay way ii soo adkaatay si soorta camal marka waa adkaataan kasoo dejinaa alaabta saanay u karaysaa kadib ayadoo karaysa ayaan waxaan dusha kasoo saarayaa barandhadii insha allah barandhadii markaan soo saaray oo saas ugu soo gadgadiyay way kartay waan ka dejin barandhada hore ayaan soo karsaday Soomaa karis kale igama baahno waxaan ku adkeysanayaa alaabtii oo caanihii waxaan ku daray kadibna way adkaatay wax la cuni karo oo maaragtaa caloosha maaragtaa cunuga dharjinaysa ayaan ay noqotay waana kana kulli waa wala nafaqo waxaan ku daray fitamiinkoodii wax walba ay wadataa waa kaasa qadadii xaafada dhan intaas laga dhigay wax kale laguma qadayn anaguna hore yaa wala nutrition oo ahaan inta naga badan waaye insha allah caruurta maanta intaas aan ku soo qaatay waa kaasa saas bay u qurux badnaatay aan ku dhahay fiishka wadanka saas ay u sameystaan insha allah waa kaasa saas u soo sameeyay kadibna weelashooda ugu soo guray wax yar oo caana dusha ka saaraya si maaragtay ay ugu cunaan laab jahdan ma lahan wax ma lahan qof yar qof weyn waa cuni karaa maanta ilmaha daryeelkooda intaas aan ku soo qaatay insha allah kadibna waxaan noo soo socotaa jika hagaaji shaqa ii taala shaqo caruurta waxaan la siiyay way haleynaan jikada soo maahan inaan dhaqo waaye marka shaqadaas insha allah wax yar kadib kaysa oo cunaa waa tasaafiishkiisaas ay u ekaatay quruxan ku dhadhankeeda waa niga tijaabiye aad bay u macdaayaan ku tijaabiye ku yaaca insha allah biinna kariim bal ku soo dhawaada jikada insha allah hadda saan baa isku dhaxyaacsan tahay kadibna weelashay wax ku cuneen iyo wax baan tirtirayaa hadda waxaan arkay waxaan hagaajinaa insha allah halka mindiyaasha la gashado baan maaragtay dhaqaaya mindiyaasha naftirkooda waan dhaqayaa kulli waa wala dhaqaa yar iyo weyn wax mindiyo dhan waan dhaqayaa weelasha yar wax ku cuneen dhaqaaya insha allah jikada aan dhaqaya iidana halka marag mishinta weelasha lagu dhaqdo intaas aan nadiifinayaa insha allah rabadaanka isku diyaarin ka hordhiciisana waa kina insha allah waana soo wadaa qaabka wax u samaysan leed wax yar aan ooga dhiman insha allah ilaahay nabad iyo bashbash iyo barwaaqa dhammaanteennaba allah nagu gaarsiiyo baan leeyahay bal daawasho wacan insha allah waa isku soo noqoni doonaa ما شاء الله أصحابتيدا alaabtaas aan ku dhaqanin rabaa tii hore waan iska tuurayaa waxoogaa dilaac yar yeelatay kadib waxaan sameynaa weelasha aan dhaqdhaqaaya saabuunta ayaa ku shubanaa waan dhaqdhaqa insha allah caagaday saxnimay wax ku cunay caagaday biyo ku cabeen waxaas dhan aan dhaqaaya waxaan kaloo dhaqa insha allah dibladaha yar oo maar saliidaha aan ku shushubto waxaas aan dhaqdhaqaaya qaadooyinka waxaas dhan waan soo nadiifinaa shaaxa lagu miirto ama caanaha lagu miirto أنا ميرها سيد أو قرنا يسامبا وحاسودنا عن دقايا إن شاء الله باقول هادين وحول بقاضي مارك أيجي هالين ماركت وعن دقنا إن شاء الله مركان صور دقج كذا ساو صور دق كدي بقى أصول لابنا يا ولاش مركان بوين كراعية وحصول لابنا الدونا إن النظيفية هالك هذا ولاش كل دقايا هالك مركورة وسون نظيفية مر الله بعد عن نظيفنا إن شاء الله mindi oo dhan waa soo arooriyay waa kaasa mindiyaasha dhan waan dhaqaaya weelka iigu jireena waan dhaqaaya waan nadiifinaya kadib marka ingegaan ayaan ku xareysani doona insha Allah waana nitusaa insha Allah way soo socotaa video kale aan kasoo sameeyay ayaa jirtaa qaabka maaragtay oo kala nadiifsan lahayd oo kala hagaajisan lahayd jikadaada hadday jikadaada maaragtay yar tahay oo kale si iska kala fududeyn lahayd weelasha aad u baahneen oo kale إن شاء الله واحد صدق ما يسوس عظام بالله هذا سام بيقصو قاتي عندك عرورتنا ولا شيء مكسا أو نظيف فيه عن هذا أنا ما رحتاج كذا أنا نظيف فيه صار نظيف فيه عن كنسته
insha Allah markaas waxaan iska sameysanayaa Herbalife tea-gayga iyo wax yar oo timir aan iska qaadanaya fadhigayga iska fadhiisanaya waxa shaqo oo iskuulka laga soo diray oo ama casharaan iska sameysanaa kaasaan ku jawiga saasa igu baxaysa insha Allah biidnillaahi kariim waxaan rajaynayaa sidaas la midna ma aragtay inay igu soo dhaweynaysan Ramadaanka hadda waxaa kale oo hadda halkan ku hayaa hadda waa tanaantan alaabta ku ridanaya qaasatan mindiyaasha iyo ma aragtay alaabaha ma aragtay ice-ka lagu sameysto macna biyaha markii la qaboojisanayo ama lagu sameysto oo geedasha yar insha Allah marka Ramadaanka iga faa'iideyn doona waxyaalaha ku sameeyo intaad biyo ku shubato biyayaasha oo ma aragtay limonta aad ka miirtay intaad ku shubtay waxaan ku dhahay frinjeeriga la geliso soo dhagaxa ka soo qaadanay aan ku dhahay biyo kale hada dhex dhigatay wala qabow ku qoraxda markay saas u kulusho 18 saacadood soo manaanayso markaas ay wanaagsan tahay aan ku dhahay insha Allah waxa kale oo niga faa'iideynaa alaabtan waxa lagu dhaqdaa ama lagu ma aragtay lagu durduraa halka mishinta ay ma aragtay ay sameynayso inay biyaha ka istaajiso hadaad aragtid inay mishintaada biyo istaajisay laazim wax baa galgalay oo gudaha ugu jira oo fadhiya ama qashinaada ama cunadii aad ma aragtay ka dhaqayso weelasha ha aado marka geedkaas yar buraashkaas yar ayaa dhaxda loo galiyaa waa lagu jujugeeyaa kadibna wixii ma aragtay marka halka u taagnaayo biyaha reebayay uu ka baxaya ama biyaha ayaa qaadayaan kadibna biyaha lagu furaa halkaas ku dhamaana insha Allah taayarna waniga faa'iideynay kadibna kor iyo hoos ayaan ka soo dhaqaaya mishinta halka ay ku fadhido ilaa darbiyaasheeda oo dhan soo nadiifinaya saabunta aan ku nadiifinayna insha Allah waa ma aragtay yiftiga dhowr nooc kala baxato jikada lagu tirtirto weelasha lagu dhaqdo to meel walba yiftiga waa kala nooc dhulka taa mid lagu dhaqdaa hada wada halka loogu talagalay mishimaanta ayaan ku dhaqanayaa soo u nadiifinaya kor iyo san ku soo nadiifinaa ku dhahay markaan soo nadiifiyo soo hagaajiyo qaabka inoo ku soo baxdana insha Allah biidnillaahi kariim mar dhow ay arki doontaan waxaan leeyahay walaalaha nagu cusuban oo mar dhow la subscribe-ka noo saaray aad ba u mahadsantiin daawashadana daawanaysaan dhammaantiin inagoo isku duuban Ramadaan mubaarak ayaan leeyahay inta hartay insha Allah oo ma aragtay hadda nagu soo mar dhow noo saari doontona inta noo saartay waa mahadsan inta noo saari doontona soo dhawaada gacmo furan ayaan leeyahay iyo qalbi wanaagsan walaalnay jecel maar walba nigu soo dadaalayso waxyaalaha marka aad tabanaysaan Ramadaan mubaarak yani leeyahay insha Allah Ramadaanki uu noo soo dhow darteeda intaas baan iga dhigaya hadiyada koowaad waa kaas jikadiisaas bay u qurux badnaatay alaabta caagaas waa caagan intiisu jiray inaad ma aragtay ilowdeen mooyaane caagaas waan ka aan dhigi jiray alaabihi yar aan ku gurtaa halkaas lagu suraa waa kaas hadda alaabahaas kala tarmuushta geedka tibta lagu tumto mooyaha yar oo adii waa kaas asaas baan iga tagay taawada isku la kulmayno waxaan leeyahay assalaamu calaykum